Inta la xaqiijiyay in ku dhow 10 ruux ayaa ku geeriyootay tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacantay qarax khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay koontarool ciidanka NISA ay ku lahaayeen agagaarka taalada daljirka Dahsoon iyo ex baarlamaan ee degmada Boondere ee gobolka Banaadir. qaraxan oo ahaa mid laga maqlayay qaybo badan oo ka tirsan magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana qiic iyo uuro ay cirka isku shareertay lagana arkayay qaybo badan oo ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo soo gaaray goobo ganacsi oo ka agdhawaa goobtii gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo ku qarxay. gaarigan walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lala beegsaday bar kontarool oo ciidanka NISA ay ku lahaayeen nawaaxiga godka Jilcow. goobjoogayaal ayaa waxay xaqiijiyeen in ay arkayeen meydadka dad ka badan 5 ruux oo ay ku jiraan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo saraakiil ciidan. magacayga waa Said Ali Xasan Macalin waxaan ku noolahay wasaaradda caafimaadka. qaraxii ugu horeeyayna lug ayaan kaga jabay kii labaadna hadda gabar waa ku dhimatay guriyii way ku baaba'een meesha ayaan ku noolnahay guriyii eber waaye meed badan iyo dhaawac badanna banaankaaba laga aroorayayba sida loo jeeday dadku u muuqatay alxamdulillaah rabbil caalamiin marka inta hadda aan la kulmay muhiimadda intaas waa dariska ka waran ay khasaaraha u geystay ayaa ka gabar daris aan nahay gabar bay kaga dhimatay gabar kala dhaawac ay noqotay adiga waa lagu rafaaday gudaha guryahayna way wada dumeen markii qarx dhacay goobjoog ma haysan aniga goobjoog baan ahay ilbaabkan fadhiyay ilbaabka horaan fadhiyay ilaahay wax iguma gaarsiin aniga rag kalaba kii hore ayaa laakiin lug kaga jabay dhibaatada jirtaa taas khasaare inta meedadkii la aragtay gaareen ilaa meedadku waxaan arkay 6 meed waa arkay oo meesha laga qaaday askari iyo shicib iskugu jira. dadka waxyeelada ay ka soo gaartay qaraxan ayaa waxaa qayb ka ah xubno ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo lagu dabiibayo qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka isqarxinta ahaa ee lagu qaaday koontaroolka ciidanka NISA ay ku lahaayeen agagaarka taalada daljirka Dahsoon iyo ex baarlamaan. tan iyo markii la galay bisha barakeysan ee Ramadaan waxa ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho dilal qorsheysan iyo qaraxyo loo adeegsanayay gawaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay.